kusoo dhawaada cashar cusub. Casharkeena maanta waxaynu kasii wadanaynaa meeshaynu kii hore uga tagnay. Casharkeeni hore waxaynu ku qaadanay in hadaa haysato f lagu dhiftay g oo ay f iyo g yihiin functions of x, in derivative-ka ay noqonayso functionka koowaad lagu dhiftay derivative-ka functionka labaad oo loo geeyay functionka labaad oo lagu dhiftay functionka derivative-ka koowaad. Yani tan aynu soo baranay casharkeeni hore. Marka haddaynu hadda example kale kasii samayno, haddaan example-keena koowaad ku bilowno, wuxuu noqonayaa y equals x cubed cosine x. Yani example-keeni saan noqonaya. Marka derivative-keeni see baynu samaynaynaa. Marka x cubed waxaan qaadanayaa f, cosine x waxaan qaadanaya inay tahay g, ay tahay functionkayga labaad. Marka derivative-kii maxay noqonaysaa dy dx waxay inoo noqonaysaa functionka koowaad oo ah x cubed oo lagu dhiftay derivative-ka ddx of cosine of x functionka labaad oo loo geeyay functionka labaad oo ah cosine x oo lagu dhiftay derivative-ka functionka koowaad oo ah dx x cubed. Okay, saan inoo noqonaysaa. Marka dy dx derivative-keeni dy dx aan hoos ku qorto dy dx waxay inoo noqonaysaa x cubed. Derivative-ka cosine maxay noqonaysaa marka? Derivative-ka cosine haddaynu jadwal ku laabano waxay noqonaysaa minus sin x oo loo geeyay derivative-ka waxaan dhihi lahaa cosine x derivative-ka x cube marka maxay noqonaysaa? Kan waa power rule, marka powerka soo dejinaya waxay noqonaysaa 3, kadibna powerka waxaan ka jirayaa 3 minus 1 wuxuu noqonayaa 2. Okay, marka si fiican waa organize garaynaya. Marka dy ama y prime baa buu qoranaya. Y prime maxay noqonaysaa minus x cubed sin x oo loo geeyay kan hore waan soo marsanay maxay noqonaysaa 3x square cosine x. Marka derivative-keeni saan ayay noqonaysaa. Okay, aynu hadda samayno example kale. Marka haddaynu haysano y equals 5x sin x aynu u baahannahay derivative-kii maxay noqonaysaa? Marka videoga intaa qabato adigu example-kan isku day, kadibna video kusoo laabo. Marka dy dx waxay inoo noqonaysaa functionka koowaad 5x oo lagu dhiftay ddx of functionka labaad oo ah sin x oo loo geeyay functionka labaad oo ah sin x oo lagu dhiftay oo lagu dhiftay ddx of 5x functionka koowaad. Okay, marka maxay noo noqonaysaa halkan? Waxay noo noqonaysaa dy dx waxay noo noqonaysaa 5x, kana muxuu noqonayaa derivative-ka sin of x. Marka jadwalku laaban waxay noo soo baxay inuu yahay cosine x oo loo geeyay halkan waxay sanaa sin x. Marka waxay noqonaysaa sin x, halkan waa derivative-ka 5x marka derivative-kiisu muxuu noqonayaa 5. sababta dambe waxa weeye halkan powerka 1. Marka powerka yani 5x haddii ay looday aan ku xasuusiyo maxay noqonaysaa 5 waa constant dibadda u saarayna. Kan powerka 1 marka 1 baa soo dejinayna, kadibna x maxay noqonaysaa powerkeedu waa 1 markaan ka jirno maxay noo soo baxaya eber. Marka kan waxa soo baxaya 1. Maxaa dhacay powerka markii wax kasta eber powerkiisu yahay waa 1. Alright, marka 5 xagee noo soo baxaya. Marka haddaan sii wadano maxay noo soo baxaya dy dx waxay noo noqonaysaa 5x cosine x plus 5
sin x. Okay, marka hadda waxaan u gudbaynaa haddaynu haysano kasoo qaad haddaynu haysano saddex function oo la isku dhiftay. Hadda waxaynu samayn karnaa labo. Kasoo qaad waxaan haysanaa saddex. So waxaan haysanaa functionka a of x iyo b of x iyo c of x. Yani waxaan haysanaa saddex function. Marka hadda waxaan qoranayaa inay yihiin a lagu dhiftay b lagu dhiftay c. Yani x yada ma qoranayo. Okay. Okay, aan u baahanahay derivative-keeda. Yani waxaan u baahanahay derivative-ka saddex function oo la isku dhiftay a lagu dhiftay b lagu dhiftay c. Marka derivative maxay noqonaysaa? Marka waxaan samaysanayaa yani waxaan ma ka dhiganayaa inay tahay a b oo lagu dhiftay c. Yani saan oo kalaan derivative-ka igu samaysanaya si laba igu noqdaanin. Saan u samaysan karo product rule. Marka kan wuxuu noqonayaa functionka koowaad. Function koowaad waa kan wuxuu noqonayaa a b oo lagu dhiftay derivative-ka functionka labaad oo ah c prime. Marka c prime okay oo loo geeyey functionka labaad oo ah c oo lagu dhiftay derivative-ka functionka koowaad oo ah a b prime. Marka a b prime waa maxay? a b prime iyada naftirkeedii waxaanu isticmaalaynaa product rule derivative-kiisa baynu keenaynaa. Marka haddaan a b prime gaar ahaan u qorto a b prime maxay noqonaysaa? Functionka koowaad waa a oo lagu dhiftay derivative-ka kan labaad oo loo geeyey kan labaad oo lagu dhiftay derivative-ka kan koowaad. Saan ay noqonaysaa. Marka hadda gashto haddaan substitute garaysto oo gashto maxay noqonaysaa? Halkan kan wuxuu noqonayaa marka a b lagu dhiftay c prime maxay noqonaysaa? a b c prime okay oo lagu dhiftay loo geeyey c oo lagu dhiftay a b prime. a b prime waa tan maxay noqonaysaa? a b prime plus b a prime. Saan ay noqonaysaa. Marka sida waxaan gelinayaa gudaha. Marka kan wuxuu noqonayaa a b c prime oo loo geeyey a b prime oo lagu dhiftay c. Marka a b prime oo lagu dhiftay c oo loo geeyey b a prime oo lagu dhiftay c. Yani saan ay noqonaysaa. Marka haddaan organize garayo si ay isugu xigaanin waxaan ku bilaabayaa midka a prime kale ma kan ku bilaabayaa. Marka kan koowaad muxuu noqonayaa yani soo qortay functionka sii qortay. Marka a b c prime wuxuu noqonayaa kan koowaad baan qoranayaa organize garanayaa a prime b c oo loo geeyey okay kan ku xijinaya oo ah a b prime c oo loo geeyey kan oo ah a b c prime. maadaama ay yihiin termiyo la isku daray yani saarta u qoranaysaa yani 5 loo geeyey 7 ama 7 loo geeyey 5 waa isku wixii. Okay, marka halkan maxaynu arki karnaa? Waxaynu arki karnaa markaynu haysano saddex term saddex shay oo la isku dhiftay inaynu helayno saddex. Yani halkan maxaynu haysanay markaynu haysanay halkan waxaan haysanay laba shay oo la isku dhiftay yani waxaan haysanaa 5x oo lagu dhiftay sin x. Waxaynu helnay laba term. Marka laba haysato waxay helaysaa labo. Marka haysato saddex shay oo la isku dhiftana waxay helaysaa saddex. Marka halkan waxaan arki karnaa inaynu kii koowaad derivative ku sameynay labadii kale ku dhufanay. kadibna kan labaad aynu derivative ku sameynay labadii kale ku dhufanay. kadibna kan saddexaad aynu derivative ku sameynay labadii kale ku dhufanay. Marka product rule waxa sameynaysaa mid baa derivative ku sameynaysaa inta function oo kale oo ku dhufsan baa ku dhufanaysaa. Saana ku soconaysaa. Marka soo qaadi xataa lagu siiyo a lagu dhiftay b lagu dhiftay c lagu dhiftay d. يعني تنو كلام حنا وصل إنه عم بدراف جرين دريفت وحنا كسمينا هذا كده ما حكون فنينا B C D كده ما حسمينا B ده دريفت كسمينا حنا وصل A B prime C D حنا وصل لوسي جي هذا ما حنا دريفت كسمينا C ده حنا وصل A B C prime D فكذا كان أفراد حنا قلنا ما دام أفراد الترمين حنا A B C T prime يعني سأنا كنا نغنيها. أوكي أنا هذا example مركا قادنا مركا هذين هاي سنة كسوغات وحنا هاي سنة y equals x square sin x all ولفتي tan x يعني كنا إنه هاي سنة وحنا بهنا هاي derivative key مركا بحنا نغنيها كان derivative key سمعنا نغنيها. اوكي waxaan ognahay inay tahay saddex function la isku dhiftay kan waxaan qaadanay inuu yahay ka soo qaad a kan waa b kan waa c saddex function way marka maxay noqonaysaa derivative-ki y prime waxay noqonaysaa
kan koowaad baa derivative ku sameynaya labada kale ku dhufanaya marka waxay noqonaysaa ddx of x square oo lagu dhiftay labada kale sin x tan x okay tan x kadibna waxaan sameynaya kan dhaxa waxaan ku siinaya derivative labada kale ku dhufanaya marka waxay noqonaysaa loo geeyay x square oo lagu dhiftay ddx sin x tan x okay kadibna kan labaad kan saddexaad baan derivative ku sameynaya labada kale ku dhufanaya marka waxay noqonaysaa x square sin x halkan waa plus okay x square sin x oo lagu dhiftay dx tan okay marka haddaan c organize garayo y prime waxay noo noqonaysaa kan derivatives wuxuu noqonayaa x square waa power rule marka labada soo deji kadibna powerka hal baan ka jaraya marka waxay noqonaysaa 2x kadibna xagga maxaa haystaa sin x tan x oo loo siigeeyey halka maxaa haystaa x square derivative-ka sin waxay noqonaysaa cosine x oo lagu dhiftay tan x kana muxuu noqonayaa x square loo geeyey x square sin x derivative-ka tan waxay noqonaysaa jadwalkii sec square one second sec square x yani derivative-keeni san inoo noqonaysaa derivative-ki waa kaas yani waxaanu sameynay derivative waxaan ku sameynay kan koowaad baa derivative ku sameynay waa kan labada kale ku dhufanay kan labaad baa derivative ku sameynay labada kale ku dhufanay kan saddexaad baa derivative ku sameynay labada kale ku dhufanay yani saas ay noqonaysaa okay marka videogan intaas ku soo gabagabeynaya videoga soo socda waxaanu ku qaadanaynaa quotient rule yani hadda waxaynu naqaanaa hadii laba function la isku dhifto ama wax ka badan aynu sameyn karno derivative-kiisi function kale waxaan qaadanaa hadii labada function la isku qaybiyo yani hadii labatan la isku qaybiyo derivative-keediisa baa loo keenaya marka waxa loo yaqaanaa quotient rule waxaynu ku qaadan doonaa videoga soo socda videoga haddaa ka heshay like comment subscribe